kusoo dhawaada waa casharadeenii barashada luqadda Englishka oo aan idinkugu diyaarinayay casharo ku saabsan present simple. waxaan hore uga soo hadalnay present simple khaasatan subjectiyada are you, we, they sidii su-aasha looga dhigo, diidmada loogu sameeyo, positive-ka loo sameeyo, short answer-kooda. haddana halkan waxaan ku qaadanaynaa present simple subjectiyada saddexda soo hartay she, he iyo it. haddii aan bilaawado waxaan leeyahay present simple he, she, it. number one, present simple numberka koowaad waxaan u baahannahay inaan fahano positive structure-ka ama positive form-ka. he, she, it waxaa lagu kordhiyaa s ama es ayaa lagu kordhiyaa. So number one, we add waxaynu ku daraynaa s to the verb ka ayaan s ku kordhinaynaa after yimaada he, she, it yimaada in present simple markii la joogo tenniska present simple. okay, tenniskan sida caadiga definitionkiisa haddii aan si yaroo Soomaaliya kusoo koobo wuxuu yahay present simple waxaa lagu sheegaa waxyaabaha general factska ah, waxa maalin kasta dhaca ayaa lagu sheegaa. okay, waxyaabaha xaqiiqada waqti dheer xaqiiqo ahaa ayaa lagu sheegaa. okay, tusaale exampleska waxaan leenahay he leaves wuxuu baxaa at 10 afar saac ayuu baxaa. she leaves waxay baxdaa at 10. okay, she starts waxay bilowdaa at 10 tobanka ayay bilowdaa. it starts waxay bilaabataa at 10 tobanka ayay bilaabataa. okay, waa wax fakti ah oo si maalin kasta u dhaco. numberka labaad, make waxaa samaysaa the sentences jumlada ka samee kuwan oo ah marka haddii aad fahanto subject verb oo la raacsiinayo s ama es iyo objectiga waa ka shaqeyn kartaa already. so number one, jumlad ka samee Maria ficilki iyo maxaa adverb of time. waayahay waxaan leenahay qaabkan u sameynaa waxaan ku kordhinaa s ficilka. Maria gets up at 8. Maria 8 ay hurdada ka toostaa. 2, waxaan leeyahay she works in Prague. magaalada Prague ayay ka shaqeysaa. waayahay waxaan leeyahay he drinks coffee. kafeega ayuu cabaa. waxaan ku kordhinayaa s ayaan ku kordhinayaa he drinks coffee. waayahay qofka u dambeeya Petro goes to bed very late. Petro wuxuu jiiftaa xilli dambe, waqti dambe ayuu seexdaa. okay, 6.2 ayaa noo xigo. 6.2 waxaan leenahay spelling present simple he, she, it. spellingka ama ficilka ka bedelka ficilka ku dhacaya subjectiyada marka ay yihiin he, she, it jumladana ay positive tahay. number one, waxaan leeyahay most verbs at s inta badan ficilada s raacsiya. tusaale waa kanaha waxaan leeyahay he speaks English oo kale. waxaan leeyahay he lives wuu baxaa oo kale. waayahay he eats wuxuu cunaa oo kale. she speaks waxay ku hadashaa. okay, she lives waxay baxdaa. she eats waxay cuntaa. okay, it speaks, it lives iyo it eats waa la mid ayada oo la macno. waayahay numberka labaad spelling of present simple ah ka baranaya waxa uu yahay. okay, waxaan leeyahay verbs any in ficilada ku dhamaanaya s double s sh ch add es ku kordhi. example Campbell waa kanaha sida he watches maxaa es ta ka horeeya ch ayaa ka horeysa. okay, ch ayaa ka horeysa. brushes waxaan leeyahay waxaa ka horeeya sh ayaa ka horeysa. okay, numberka saddexaad waxaan leeyahay go iyo have iyo do are irregular. saddexdaanina waa kuwo irregular oo nidaamka saxda ay yeelaynin. tusaalaha waxaan leenahay he goes shuruuddii la sheegayna ma leh esna wuu wadayaa. so waa irregular, si gooniya ayaad ula macaamili doontaa. she has waxay leedahay. waayahay it does waxay sameysaa. okay, he goes wuxuu aadaa. he has wuxuu leeyahay. he does wuxuu sameeyaa. waayahay haddaba maxaa noo xigo intaas waxaan rajeynayaa inuu kugu filan tahay oo aad fahmi doonto. qaybta xigto
waa exercise-ka markasta casharadeenna waxay ku fiican yihiin waxay leeyihiin exercise yaroo lagu diyaariyey dee ay suuragal tahay videoga hakiso isku day inaad ka shaqayso waayahay dabcan waad samaysay waaya kan koowaad qaabkan ayaan uga shaqaynayaa waxaan leeyahay Maria gets up at 7 o'clock hal saac ayuu Maria ka kacdaa okay Raul has 2 brothers ayaan leeyahay Raul laba walaal ah ayuu leeyahay marka qaabkaas infinitive-ka ficilka asalka ah subject-iga ayaa wax ka bedelay oo hal qof ah saas darteed ayuu has ku noqday waayahay Petra watches TV in the evening ayaan leeyahay jumladan kalena exercise-kaas kale kan afraad waxaan dhihi doonaa qaabkan ayaan u sameynayaa waxaan leeyahay Anna goes to bed very late Anna xilli dambe ayay jiifataa kan u dambeeyo qaabkan ayaan uga shaqeynaynaa waxaan leeyahay John drinks tea for breakfast okay John wuxuu ku quraacayaa shaah markastoo quraacanayo shaah ayuu ku darsadaa kaasina waa exercise-kii ballan haddii oo video soo gaaro naguna cusub tahay like dheh subscribe dheh saaxiibadana gudbi thank you 6.3 qaybta saddexaad ee grammar ayaan idiin diyaariyey waxaa ka mid ah adverb of frequency-ga waxaan leeyahay haddii aan definition yar saaro waxaan leeyahay adverb of frequency tells us wuxuu noo sheegaa how often something happens sida shay markasta uu dhacayo ay inta badan u dhacayo tusaale wax marnaba aadan sameyn oo marnaba dhicin maxaa adverb ahaan u adeegsanaynaa marmarka qaar waxyaabaha dhaco 40% camal 90% boqolkiiba boqol okay balan aragno okay never waxaan u adeegsanaynaa waxaan abidkeena aan sameynin okay sometimes 40% camal okay usually 90% camal always na waxa maalin kasta sameyso marnaba aadan ka daalin ama aan ka habsaamin okay 2 adverbs of frequency adverbyada tusaaleeya soo laalaabashada ficilka kan kam waxay imaan karaan before the verb ficilka hortiisa ay imaan karaan example ahaan haddii aan raaciyana waxaan leeyahay we usually get up at 7:30 waxaan hadii jeeraa hurdada ka toosaa hal saac bar marka get up waa ficilka usually-na way ka horeysaa sida ujeedo waayahay get up waa ficilka usually-na waa adverb of frequency okay he always goes to school at 8:15 markasta iskuulka wuxuu aadaa 8:15 he always goes to school at 8:15 markasta wuxuu iskuulka aadaa 8:15 so goes waa ficilki always na adverbki ama falkaabki waaye maxaa ku xigo I never drink coffee abidkay kafee ma aanan cabin okay waxaan leeyahay drink waa ficilka jumladda neverna waa adverbki ama qaabka ficilkaas u dhacay kii muujinay haddaba haddii ay la socoto oo aad fahantay waxaan kaa rajeynayaa exercise-kan videoga inaad hakiso doonto thenna aad ka shaqey doonto okay already waa isku dayday ama waad ka shaqeysa adverbkan xageen geynaynaa waxaan geynaynaa before the verb oo halkaan ah waayahay always xageen geynaynaa before the verb oo halkaan ah sometimes xageen geynaynaa before the verb oo halkaan ah okay number 1 they never leave work late weligood kamaytan tegin shaqada xilli dambo so she always has lunch here markasta meeshaan ayay ku qadaysaa waayahay waxaan leeyahay marka eragan ficilka has waxaan ka hormariyay always oo muujinaysa ficilkaas uu dhaco okay sometimes I sometimes play tennis mararka qaar tennis ayaan ciyaaraa marka sometimes waxaa ka hormariyay eraga ficilka ayaan ka hormariyay oo aan dhahay I sometimes play tennis okay aan ku celiyo mar labaad aan Soomaaliyeeyo waxaan leeyahay they never leave work late weligood shaqada kamay tegin xilli dambo she always has lunch here marka meeshaan ay ka qadaysaa I sometimes play tennis mararka qaar tennis ayaan ciyaaraa okay marka tenniska markasta wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha faktiga ah okay waxaan raacsiinayaa 6.4 present simple he she it yes or no question and short answers yes or no question iyo jawaab gaaban okay waxaan hadii jeer su'aashu adeegsanaynaa eragaas colorka ah oo ah das waxaan ka hormarinaynaa subjectiga okay waxaan ka hormarinaynaa faacilka saa dhacdaba waayahay does she work miyay shaqaysaa
short answer ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa inaan idhaa haa way shaqaysaa qaabkan ayaana u samaynayaa yes she does waxaa laga diidayaa yes she does haa way shaqaysaa waayo waxaa laga diidayaa aan lii ogolayn inaan qaabkan dhaho okay inaan dhaho not la ima ogolo yes she works inaan dhahdo ma lagu ogolo waxaan leeyahay short answer hadday tahay auxiliary-ga adeegso ficilka adeegsanin okay does he like beer khamriga beerka miyuu jecel yahay okay waxaan leenahay does she work miyay shaqaysaa no she doesn't maya ma shaqayso qaabkaana laguma ogolo no maya she doesn't work saana lama ogolo waa la diiday saa ula soco okay su-aasha xigta waxay tahay does he like beer khamriga miyuu jecel yahay waxaan leeyahay no yes he does oo kale haa wuu jecel yahay waa example okay qaabkan lama ogolo in la yiraahdo yes he likes in la yiraahdo lama ogolo waayahay waxaan leenahay does he like beer beerka miyuu jecel yahay no he doesn't qaabkan waa la diiday soo ma jeedid okay no he doesn't saa ayaa ula soco haddaba haddii ay la socoto oo ay fahamtay su-aalaha sida loo sameynayo iyo erayga lagu sameynayo isku day inaad su-aalahan aad sameyso su-aasha koowaad videoga hakiso isku day intaan aniga ka shaqeynin adiga ka shaqeyso haddaba waxaa dhici doono waxaan sameynaynaa erayga daas ayaan ka bilaabaynaa marka koowaad kabacdi intaa hore caadi u wada qor marka does she watch tv miyay daawataa number 2 waxaan dhahaynaa where does he work halkee ka shaqeeyaa okay kan xiga waxaan leenahay negative maadaama diidme iyo wax dhan isku baranaynay okay Carla doesn't have a job shaqo ma lahan ama shaqo ma haysato data positive-ka meeshaan half ku qoran tahay haas ay ahaaleed lacal haddii positive ahaaleed su-aasha iyo diidmada waxay kusoo laabanaya ficilka asalkiisa ama infinitive verbka ayaa kusoo laabanaya okay numberka xiga wuxuu yahay WH question waaye what does she do in the morning subaxdii maxay samaysaa what does she do in the morning su-aalaha laba qayb waa yes or no question iyo WH question okay thank you very much haddii kusoo gaaro videoga fadlan asxaabtaada u gudbi oo la wadaag subscribe waxaan kaa rajeynaynaa inaad dhihi doonto waxaan jeclaa qof kastoo idin kamid ah asxaabteyda aad baad u mahadsantihiin thank you very much